maanta haddii laydin weydiiyo oo lidin dhoo sheekh cabdinaasir kumuu ahaa waxaynu ku soo wada ururin karnaa oo dhammaanteen wada aaminsannahay inuu ahaa nin aan adduunyo damac ka lahayn cadow iyo qariibba waxay markhaati ka ahaayeen sheekhu inuusan adduunyo ku mashquulsanayn keliya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sifaadkii uu lahaa ee adduunyadu inay wax qiima lahayn ee agtiisa ka ahayd saasoo kale inuu sheekhu ku tilmaamo ka tegidda oo markaa taas agtiisa noocaa ka ahayd isagoo baahi badan uma qabin saaad maqlayseen waana ku ducaysanaya inuu ka shahiido oo shahaado ka qaato waana u rajaynaynaa inay shahaado u tahay ilaahayna waa uga baryaynaa inuu shahaado uga dhigo laakiin laba qodob horta inta muslimiin ah ee daafaha adduunka joogta ee nala murugootay heerlaasacaanood si gaara ula murugootay oo tacsida iyo ducada u soo dirtay waa mahadsan yihiin dhacdadani waxaa la rabaa si gaara farriin waxaan ugu dirayaa dadka deegaanka inaad wax ka barataan sheekha dhimashadiisii isaga waa jecleen waana inaga tegey waana u ducaynaynaa laakiin maxay ina bartay yaa cadow inoo ah yaa ina jecel yaa ina la murugooday yaa ina la murugoon dabadii uu inoogu ahaa sheekha iyo hogaamiyaha inoogu ahaa inaynu cagta ku hayno juhuuddii iyo dadaaladii dacwadeed oo 40 sano ka shaqaynayna inaynu ka sii midho dhalinno meel fiican bay maraysi inaynu ka sii midho dhalinno oo aynu halkii ka sii wadno taasaa inala gudboon alla subxaanahu wa tacaala hayna waafajiyo hana inoo fudaydiyo wadada xaqaana alla subxaanahu wa tacaala haynagu sugo assalaamu calaykum waraxmatullahi halyay baa baxay aqoon leh hanbaa gaasiray awood leh hoglaa gaagaxay daruur leh hormuud baa maqan jihaad leh sheekh baa naga tegey han weyn leh waddanii baa hoday hoggaan leh oo hanad baa inaga go'ay oo hanad baa go'ay geesnimo leh بشيخني عيد اللي هو اسمري رحمة الله تعالى عليه إننا ما برينا الطريق دي سمرر كلا إنه فريق كلا لقى شكلين دونا لما أنت محمرتين كاي قفلوا مركز تكون يسوع هدوي سيستو إلهي هو استهلتو عيد كلا يدان كدرقية إن ربي قاعدوا كبغيا مركز سجوده النبي صلى الله عليه وسلم حديث كمسلم بخاري من حديث أبي هريرة أغرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه الدعاء فغمنون أن يستجاب لكم
qofku wuxuu ilaahay ugu dhow yahay markuu sujuudsan yahay ee fooda dhulka dhigo ee uu dabada cirka u taago ducada farabadiya waxaad u dhowdiin inay ka aqbalo geeri aad u xanuun kulul oo dhib badan baa shalayto duurkii inagu habsatay waxaan waxa weeye qiyaasiyaa inay musiibo ka weyne oo inagu timaadaa waa jiri kari lahayd laakiin inay aada u yar tahay baan u malaynayaa waxaa inagu dhacay wax inteennaasoo qof ka oohiyey baa inagu yimi waa musiibo aada u xanuun kulul weeyaan waxaanse ku ilaaweynaa oo aynu laabta ku qaboojisanaynaa inay laba qodob waa qodobka koowaade waa waddadii caadiga ahayd oo qof kastoo innaga inaga midi uu cagta ku hayay oo halkaa ku dhammaanaysa waa waddadii bini aadanka intii innaga inaga horraysay inteennan maanta naftu ku jirta wixii ka horreeyey waddadii ay wada qaadeen weeyaan waa waddadii ay qaadeen dadkii ilaahay uu jeclaa ambiyadii iyo saalixiintii iyo muslixiintii iyo dadkii wanaagsanaa waddadii ay mareen weeyaan sheegayaa dadka culimmada laaya noocay doonaanba ha ahaadeen ama dadka bulshada waxgalka u ah ama gobolkeenna ha ka dhacdo ama soomaali oo dhan ha ka dhacdo waxaan leenahay kuwa ilaahay ummadda ha ka soo qabto ilaahay ummadda ha ka soo qabto waxaanu u sheegaynaa haddaanu nahay gobolka sool ama culimmada inaanan marna ka niyad jabi doonin inaanu sheegno xaqa laakiin waxaa dhacday oo isaa mashhuur ugu noqon waayey waxay yidhaahdeen culimmadu jumlo cajiib leh dayacahu asxaabu raggiisii baa dayacay maanta waxaad moodaa culimmada kale caalamka sida looga yaqaano oo turaaskoodu uu caan u yahay sheekheenna malaha in mansiladii la rabay iyo cilmigii uu lahaa aan la gaadhsiin waxaa jira rag maqaalo qora shucara ah lugawiyiin ah fuqaha ah bal inay turaadkii sheekha dib ugu noqdaan oo dib ugu maraajaceeyaan